gees ay dad kale u baahdaan si ay dib ugu daawadaan. marka waxaan isla dul istaagaynaa fursadaha isbuucan. Isbuucan hadda noo bilowday waa isbuucii labaad bisha February 2026. marka aragti ahaan iyo suuqa fursadaha aan isbuucan ka qaadan karno ayaa isla dul istaagaynaa. Isbuucii horena wixii fursadaan qaadanay haddii aan dib ugu laaban karo oo gadaal ayaan ka dhigayaa, muuqaalka dib ayaan u marinayaa. Marka aragti iyo fikir iyo wixii usbuucan nagu habboon inaan suuqan ka qaadano ayaan waqti siin doonaa. Idinkan waxaan rajeynayaa inaad waqtigiina igu siisaan sida ugu qurux badan inaan fursad u taxliilino. Waqti kalena kuma lumin dooni iyo waxyaabo kale out of topic ma gali dooni. Kaliya waxaan waqti siinayaa maxaa fursad ah maanta noo muuqda, maxaa filashadeena isbuucan ay noqon kartaa. marka waxaana update badan aan ka kala qaadan doonaa. sidoo kale wixii lagaaga baahan yahay as a trader oo muhiim ay tahay inaad raacdid suuqan. qodobo iyo qaanuuna jiro oo qofka la rabo inuu raaco haddii uu rabo inuu lacag suuqan ka sameeyo. haddii qodobadaas kuwo ka mid ah uu khilaafana, mase uu taxadir siin waayo oo mudnaantii looga baahnaa qodobadaas uu siin waayo, wuxuu noqon doonaa qof suuqi markaa gambal iyo mase maxaa la yidhaahdaa adi ku nasiibso oon ay ka tahay den ugu dambeynna suuq iskaga bixi doono. beri ka maalinna adoo arki doona isagoo ka sheekeynaya ku leh suuqii ma ahan forex meel lacag laga sameeyo, waa meel lagu qamaartamo mase aysan dadka lacag ka sameyn. waana saxo suuqan qof walba lacag kama sameeyo. intii qodobada iyo shuruudahooda iyo systemkooda raacda unbaa lacag ka sameysa. marka haddii qodobada iyo nidaamka iyo mawduuca kuu degsan oo cilmigaa ku saabsan aadan waqti siinin, wax keliya aad filinaysid waxaa waaye wixii aad abuurataad guranaysa soo maaha. qof haddii uu maanta timir abuurto ma laga yaabaa inuu tuwaaka gurto, mise qof tuwaaka abuurtay maanta inuu timir helo laga yaabaa. so qof walba wixii dadaalkiisa iyo waqtigiisa uu siiyo, iyo qof walba wixii markaa kalsooni iyo isagu arko inay waxaan ka go-an tahay inuu sameeyo amba horumarka gaara. Okay, waxaan ku bilaabayaa haddii wax newsya ay jiraan saameyn nagu leh isbuucan ayaan kooda hore isla falanqeyn doonaa. website-kan Forex Factory ayaa ah website-yada markaa xogta badna aan ka qaadano. aan is leeyahay dadkan way u baahan yihiin isbuuc walba u bilaabanaya inaad booqatid mar un. isbuuc markuu kuu bilowdo waa muhiim maalinta isniinta ah inaad dulmar ku sameysid newsyada saameynta leh isbuucan ee soo bixi karo. sababtoo ah waxay kaa caawinaysaa in suuq volatile ah aadan ku dhex lumin. suuq maanta filashadiisa ay ahayd bank holiday oo kale inaadan haddana aadan ka filin inuu suuqa volatile yeesho. marka ani ahaan hadda maanta waa isniin, wax news ah oo saameyn ah halkaa igama muuqdaan. beri waa talaado, waxaana ka muuqdo core retail sales oo lacagta USD da kasoo baxaysa 7 saac iyo bar, iyo retail sales monthlyga oo la rajeynayo forecastigooda 0.4%. wixii actual soo bixi doonana saacadda iyo waqtiga trade-ka iyo aan qaadan doono New York session ayaan ku taxliilin doonaa. laakiin maanta wax news ah million beri marka labada news ay jiro. sidoo kale maalinta arbacada ah bank holiday ayaa jiro, lacagta JPY Japanese-ka. so marka inaysan volatile lahaanin maalinta arbacada haddii USD JPY miskaar JPY aad trade garaynaysa aad aragtid inaysan wax dhaqaaq ah lahayn, ugu bank holiday iskaga jiro lacagtaasi. so maalinta arbacada sidoo kale lacagta dollarka newsya saameyn laha kasoo baxayo markay New York session tahay 10 saac bar galabnimo. marka sidoo kale non-farmkii iyo unemployment labadana saameyn ugu leh reedka ay kusoo bixi doonaan iyo saameynta ay suuq ku lahaan doonaan. markuu newska soo baxon baa ogaan karnaa. wixii hadda ka horeeyo awood uma lihin as a retail traders inaan xogaha noocan oo kale aan siday tahay u qiyaasno. waa sii qiyaasi karnaa, waxaase soo bixi kara waa dhigi karnaa, laakiin haddana ma noqonayso sidii anaga aan ugu talagalnay bas anaga aan u rabnay. Ah, khamiista sidoo kale GDP lacagta poundaga ayaa haddana kasoo baxaya markay London session tahay 10 AM subaxnimo. then isla khamiistaas haddana news kale waxaa jira saameyn leh oo unemployment claim ah. okay, marka unemployment rate iyo claimkan waa laba mawduuc oo ayagana saameyn isku leh, laakiin actual waxay kusoo baxaan ayaan ka aragti qaadan doonaa. especially markaad trader tahay technicalka ugu badan wax fursadaha laga dhiso intan keliya waxaa waaye inaad xog ka haysid suuqa saameynta ku lahaan doono maalintaasi.
iyo qaab move noocee ah ayaa jiri doono. Jimcaha ayaa ayadana sidoo kale CPI jirto, triple oo saddexda CPI mataanaha, marka saddexdan CPI na saameyn ayay ku leelan doonaan suuqa. Marka Fridaydan waa waqti I think hadda 4 beri naga xigo, marka naga xigta saasay tahay. Marka newsidan inta u badan hadda aan news nagu soo aadan waxaa waaye kulli waa New York session oo isbuucan nagu soo aadan. Marka haddii waqtigooda aan ku sugno un baan arki karnaa wixii suuq isbedel ay ka sameeyaan, laakiin hadda waxaan waqti siinaynaa marka technical analyze iyo fahamka chatka sidee falcelin ah ay maanta wax u dhaceen iyo isbuucii lasoo dhaafay. Okay, horta DXY-da day level markaa fiirisid in badan aragtida ugu badan sile u socotay. Isbuucyadii lasoo dhaafay, labadii isbuuc lasoo dhaafay, in yaroo rejection oo baya la aaday. Aadidaas bay la aaday keliya waxaa loo socday in gaabka la buuxiyo levelkaasi oo loo dhawaado. Then 4 hour time frame-ka markaa booqatid oo aad jihada trendiga aad isku day inaad fahamtid, coachka ugu dambe horta halkaas oo ka dhacay. Then kani wuxuu ahaa marka 4 hour high time frame-ka guud. Kan waxaa noqon karaa mid kaloo isagana 4 hour high kale. Then kana xigay isagana wuxuu noqonayaa 4 hour high low. Hadda marka waxa ii muuqato in high lowgii la jibiyey, oo micnaheed ay tahay in suuqi haddana trenda down trend uu wareegay, taasoo marka sababayso in suuqa fursadiis maanta ugu badan lacagta DXY ay sell tahay. So 1 hour-ka ayaa isagana xog badan u baahan ka hor intaadan 4 hour-ka go-aan ku qaadan 1 hour-kaaga jihadiisa inaad soo saxdid. 1 hour-ka asaga inta aan 4 hour-ka la jibin ka hor ayaa la soo jibiyey, sababtoo ah halkan waxaa yaalo haddii aan ka qabto break of structure tan halkaas waxay noqonaysaa 1 hour high. Okay, highgaasi high kalaa ka sareeya oo meeshan ku jiro haddaa il gooni u fiirisid oo BOS ah oo caddaynayso inuu kan yahay high kaloo ka sareeyo midkaasi. So waxaa xiga marka high low kaloo halkaa yaalay oo marka high-gaa sababay. So high lowgii 1 hour-ka waxaa la soo jibiyey isaga ka hor intaanan 4 hour-ka la jibin. So mar walba time frame-ka uu ka yar yahay ayuu xogtiisa ay ka fududahay inuu suuqa trendigiisa aad ogaatid. So si limid ah 1 hour-ka asaga 4 hour-ka uu ka horeeyay inuu trendiga soo bilaabo. So already one new low halkaa yaalay. Marka qofkii trader ah oo market structure-ga yaqaana oo suuqan yaqaana systemka market structure sida u shaqeeyo, already wuu sii qiyaasi karay in 4 hour high low-gan lasii jibin doono mar alla markuu suuqa price-kaasi halkaa marayay. So aragtida noocaasi 1 hour trendigana waa meesha supply iyo demand badna laga ilaashado haddii smart trader aad tahay. New low-ga markuu dhashay waxaa xigay waa correction yar 3 candle oo buy ah oo halkaa aaday mar alla markii supply zone-kan ay muhiim ahayd oo halkaa IC candle yaalay in lagu laabto isla 1 hour-ka waa ka qiimeynayo. Correction-kan laabashadiisii halkaa ku laabtay ayaa marka fursad trend ah inay ku jirto xataa macquul ah qofkii il gaar ah u yeeshay aragtidaas. So trendkan soo daatay oo ilaa halkan soo move gareeyay haddana sii socdo laga yaabo in zoomka hoos uu sii tago. Qofkii aragti il gooniha ku heeyey oo market structure-kiisna cilmigii kalsoonidii uu dhisay uu waqti siiyey wuu garan karay tradekan fursaddan daadanayso inay sell tahay. Marka aragti ahaan muhiimadda DXY-da waxaan kusoo gebagabeyneynaa trendigeeda inuu sell yahay jihada guud inay sell tahay, taasoo marka muujinayso lacagaha DXY aan la trade garan EURUSD GBP ah inay ayagana fursad ay buy noqon karaan. Fursada hadda inkastoo aniga ahaan shakhsiyan aanan trade garaynin London session maalinta Isniinta ah, sababta aan u diiday inaan London session trade garin waxaa waaye suuq wuxuu u baahan yahay inuu isfuro maadaama weekend uu ahaa inuu isfuro. Okay, ani ahaan last week ilaa iyo fikirka aqri waxay ahayd yuurada inay zoonka sii booqan karto mar alla markuu suuqa selka soo ahaa last week isbuuci lasoo dhaafay halkaa correction ay noo ahayd. anaga aragtidaan qabnay waxay ahayd in zoonka lasii booqan karo. So inta badanna markaad fikir aad ka haysatid suuqa oo aad fikir ka qaadatid oo aad rabtid sidaas inuu sameeyo, kama turjumayso inuu suuqa qasab ay ku tahay inuu sidaas sameeyo. laakiin adiga mar walba waxaa ku habboon tahay probability qiyaastaada iyo aqoontaada inaad is agdhigtid oo dhahdid okay suuqani
sida noo muuqata caadi ahaan hayalogin ugu dambeeyey kaasuu ahaa oo lasoo jibiyey oo coachka halkaasuu kasoo dhashay. Kani muxuu noo noqonaya marka? One hour new low noo ahaa, trend cusub uu ahaa. So one hour new low markii la sameeyey waxaa lagu fashilmay in la jibiyo, in lowlowka la sameeyo. dhalinyarta aan isla joogno oo badna casharada iyo waqtiga aan isla qaadanana mar walba waan ku celiyaa, waxaan yidhahdaa ayna muhiim tahay oo ayagan intooda badan ay fahmeen. Waxaan yidhahdaa haddii uu suuqa low sameyn waayo, uu lowgii hore oo kan ahaa uu ka hoos mari waayo, boqolkiiba boqol inta aan dhihi karo boqolkiiba 90 waxay u badan tahay in meesha inducement ay tahay. Okay, cashar dhan oo casharadii freega waxaan kusoo baranay oo dhalinyarta koorsada aan siinaynay January. So haddii suuq uu jibin waayo new low mise low hoosey uu low kala sameyn waayo, waxay u badan tahay inay halka inducement noqonayso, then ayada markaa la jibin karo. Ma sababtoo ah kuma saleysno meel demand mise supply sax ah. So inducement waa meelaha liquidity kala ah oo la rabo marka inaad iska ilaalisaan anytime uu suuqa lowgii hore ka hoos mari waayo, meesha laga soo tagayo halkan ah inay isku bedesho meel markaa anytime suuqa kor loo jibin karo. So hadda marka new low haysanaa, new lowga marka wuxuu ka turjumayaa trendigan euro USD weli waa sell, fikirkaas weli wuu jiraa. Laakiin maxaa aad u fog mataqaanaa, suuqa meelaha uu loohay ka sameyn lahaa ayaa waxay noqotay meel aad u fog, oo micnaheeda in xataa waxaa macquul ah zoomka kore naga sare lagu sii laabto si waxaani dhan ay u noqdaan marka correction, oo waxaan dhan ay correction u noqdaan. So markaas trader one hour new low marka haysatid oo supply zone kaagan aad u dheeraado, maxaa kuu bannaan inaad ku trade garaysid 15 minute-ka, inaad 15 minute-ka u degatid aad tirahdid supply zone-kayga ma dhow waa u jeedaa, one hour low high-na ma hayo. wax ugu habboon maxay tahay inaad low time frame u degatid aad tirahdid 15 minute low high-gaygii u dambeeyey waa kaas oo halkaas u yaalay, kan wuxuu noqonayaa 15 minute ee low lowgaygii, kani wuxuu noqonayaa 15 minute lowgaygu noqonayaa. So 15 minute lowgi shift ayaa lagu sameeyey, suuqii muxuu abuuray? Suuqii wuxuu abuuray 15 minute high, haddana 15 minute high kale, 15 minute high kale. So high lowgi 15 minute halkaasaa laga soo jibiyey, waxaa la abuuray 15 minute low low, 15 minute low low, 15 minute low low, 15 minute low low. So 15 minute-ka trendiga socda oo 15 minute low ahaa, 15 minute low, then low kale maxay ku fashilmeen in one hour-kii new low ah ay jibiyaan. Okay, waxaad u laabataa marka aad tiraahdaa okay, xagee low high-gaygii 15 minute u dambe halkuu ku aadaya? 15 minute low high-gaaga u dambe wuxuu ku aadaya marka maadaama kan 15 low low u yahay, low high-gaaga u dambe wuxuu ku aadaya kan. Okay, oo kan uu ku aadaya. So halkaas maxaa ka dhacay? In laisku dayay 15 minute-kii in la jibiyo, laakiin lagu fashilmay, then breaker loo soo qaatay kadib markii dambe 15 minute shift halkaa laga sameeyey. So the moment markii la sameeyey shiftigaas oo boodigaas halkaa ku jiro, hadda hadalka boobsiinayana xoogaha waxaan aaminsanahay inay dhalinyarta advance yihiin. So classkan class waxbarasho ma ahan, kaliya waxaan aaminsanahay class dad experience traders ah inay daawanayaan. Haddii marka aad ku cusub tahay waxaan forex waxay tahay iyo technicalka aadan fahansanin, please waxaan ka codsanayaa inaad casharadii iyo waxbarashadii aad waqti soo siisid. Marka adoo waxba xogtan aadan haynin way adkaanaysaa nidaamka sharxa inaad fahamtid. Okay, so marka kaasi 15 minute high high uu dhashay, ka marka alla 15 minute high high uu sameeyey automatic markii kan kale la xijiyo 15 minute high high la sameeyey, qofku wuxuu garan karaa marka aragti ahaan wuxuu garan karaa oo caadi ah inay meesha inducement tahay oo 1 hour ka ku ogeed inay meesha inducement tahay, aysan ahayn 15 minute low high. So haddii marka meeshan 15 minute-kii soo laabto, haddii kan wuxuu noqonayaa marka 15 minute correction, mar alla markuu correction-ka sameeyna waxa xiga maxay noqonayaa marka in 15 minute high high ka la sameeyo ilaa markii dambe xataa 70 bib ilaa iyo ku dhawaad 70 iyo dhowr bib la dhaqaaqay, taasoo marka kalsoonideeda sheegayso in trade-ku u baahan yahay xataa ilaa zoomka kor inuu soo laabto, soo taabto haddii ay noqotoba waqtigaas aan siin. Marka DXY xooga waa clear, ayada waa 1 hour-keeda waa sell, 4 hour-keedana waa sell, laakiin yuurada xoogaho trendiga 15 minute-ka unbaa la garan karaa meesha u socdo, laakiin 1 hour-kii wuxuu haystaa new low, taasoo marka kalsoonideena aan ku taxliilinayno in aan suuqan u trade garayno aragti ahaan buy ilaa iyo DXY-da ay tahay sell. So hadda laakiin aragti iyo fursad meel aan ka qaato oo aan buy ka qaato ma hayo,
then I have to be patience oo dulqaad inaan muujiya oo systemkeedii iyo shuruudihii inaan si joogta u helo maadaama asbuuc maanta uu bilaaw yahay so wax haari ah mas orod ah igu jiro ma jiro ilaa aan fursadii shuruudii aan helo okay waxaan sii xijinayaa horta USD hadalkeeda waan soo koobay waxaan yidhi aragtideeda waa buy maadaama DXY ay sell tahay so buy u trade garaynaynaa wax kaliya arabna waxaa waaye hadda in maybe meelahan demand zone-kan ay kusoo laabato correctionkan xiga oo soo laabanayo inaan haddana aragti fursad kale aan kasii dhisno maybe aragtidaas ayaan qabaa haddii shuruudaas inoo dhammaystirto okay GBSD haddii aan hal iyo laba aan ka yiraahdo aydan waxay ku jirtaa tradyadii oo isbuucan aan dhowr trade aan ka qaadanay ilaa I think hal trade aan ka qaadanay so aydan fresh aan dhahay wax walbo oo wixii isbuucii hore ii qornaa trendigeeda ayada xoogaho ay ka duwan tahay markii loo fiiriyo lacagta euro USD da ayada already looloogeedii halkan uu yaalaa kana wuxuu ku yahay one hour loolo then another loolo kan halkaasuu yaalaa oo halkaasi shuruudahaadii trade ka muuqdaan then kan wuxuu noqonayaa one hour low high kale so hadda already waxaa moodaa inuu meeshan ka dhacay coach oo taasoo kalsooni kuu siinaysa marka inaad suuqan fursadiisa aragtidiisa dhan jihada trendiga buy u trade garaysid ilaa xataa macquul ay tahay zoomka kore lagu sii laabto so awalan waxaa marka macquul ah inaan helno xagee dhimaankeena ani ahaan dhimaankayga halkaas oo noqonaya soo laabashadan hadda lasoo laabana inaan correction ku raadino entry modelkii then halka aan buy ka qaadano so boundagana si la mid ah wuxuu u wareegay trendigiisa buy so trendiga waa trend up trend ah so marka waxaan ka dhisnay iyo waxaan fikir aragti aan ka qaadanaba waxay u wareegi doontaa aragtida buy okay USD card aa noo soo hartay USD card maadaama dollarka asagana intiisa badan uu sell aaday DXY-da ayadana soogaxo waxay ku leedahay indirect saameyn waxay ku leedahay oo ah saameyn indirect markii la toos uma saameyso laakiin ugu dambeyn saameynteeda way soo gaaraysaa so BOS ugu dambeeyey kaasuu noqonaya then kanniha ayaa loogaay ugu dambeeyay ayuu noqonaya DXY-da so halkaa waxaa ka dhacay isbedel change ah then halkaa waxaa noo yaal hadda one hour new low ereygan micnihiis waxaa waaye trend cusubaa noo bilowday so wax low high ah ma hayno so supply zone-kan wuxuu ku aadi karaa maybe waa kan haddii kaas aan la teginna waxaa lagu sii aadi karaa kan so labadan supply midkii lagu laabto inaan entry kasoo dhisno kadib shuruudihii entry modelka markaan helnana aan fursadahan jihada trendiga aan sell u trade gareyno ilaa macquul ay tahay ayadana zoonkan hoose in lasii tago isbuucan so aragtida noocaas marka yaa sheegayaan yayna muhiim tahay in aad ka fahamtid waa market structure-ka la rabo inaad ka fahamtid aniga tusaalahaan maanta sidaan u taxliiliyey laga yaabo beri marka intaana kala maqanahay uu suuq isbedelo uu kor ka aado so adiga ha ku dheganaanin isniintii xaal leh sell suuqa sell sii ahaanaya waxyaaba ugu muhiimsanna qofka la rabo inay waajibkiisa ay tahay waa inuu cilmiga asaga yaqaana haddaadan cilmiga sida u shaqeey aadan aqoonin waxa aniga kuu sheega waxay noqon karaan wax dhagaha aad ka maqashid dhegta kale aad ka bixisid oo macnaha waxba macno kuma soo korinayso so you have to know the concept-ga sida systemka u shaqeeyo taasaa kaa caawinaysa marka wax walboo la sheegay inay ku ahaadaan practice mise wax hordhac ah ma ahan inaad go-aankaaga kama dambeysta ahaa uu kaas yahay okay marka ani ahaan waxaan kusii dhihi lahaa mise aan kusii adkeysanayaa inaan USD card aan u baahanahay correction haddii correctionkaas entry aan kasoo helnan aan sell soo trade gareyno okay so lacaga Japanese kada u yartago ayagana waa lacag kale ayagana isbuuci hore fursado bixiyey laakiin ani ahaan aan qaadan fursad aanan ka qaadan dan ina haddana keliya gareeyo one more time isla qiimeyna pre structure ugu dambeeyey xagga ma noqon karo kanuu ahaa lacagta USD JPY hayahaga ugu dambeeyey suuqa uu sameeyey kanuu noqon karaa then kaasi hadduu hayahay noqdo halkan automatic waxay noqonaysaa hayaan loogaaga muhiimadda ugu muhiimsan haddii aad rabti inaad suuqan intaad ugu badan uu biaskaaga fiicnaado macnaha fursadahaada ay kuu saxnaadaan mar walbo trade aa qaata aragti inaad guuleysatid mar walbo trade aa qaata sali baa inaad fursadaha tradeka uu TP noqdo waa inaad one hourka jihadiisa iska ilaalisaa one hourka waa mid ka go-aamiya meelaha supply iyo demand-yada yaalo okay so kaasi waa one hour loolo I think one hour new low noqonaya so kaasi haddii one hour new low ku aado so halkan maxay noqonaysaa marka halkan waxay macquul tahay
inay supply area halka ay noo tahay, then aan u baahannahay correction. Siiba special USD GB waxaa haynaa space weyn aan sell kusii tirigarayn karno, marka waa fursadaha aan usbuucan ara inaan isha kusii hayo oo aanan ka mashquulin. Waa lacagaha USD JPY da ka mid tahay iyo USD card sidoo lamid ah. So Euro USD oo trendigeeda baa yahay, GBP USD oo baa yahay, USD card oo sell ah, USD JPY sell ah. So lacagta dollarka unbaa dhan walba loo sell garaynaya. So fahamka waa intaas. Card JPY hadda ayadan hal iyo laba aan ka yiraahdo, maxaa kasoo kordhay, inkastoo ayada xoogo ay ka aragti duwan tahay USD JPY-da aysan isku form ahayn, laakiin waxaa moodaa inay isku mid noqon doona. kaasi waa una hayahay, so hayaaluga ugu dambeeya kaasoo noqonaya. Sida hadda noo muuqato lama jibin hayaalogii, soo maartid suuqa hadda meeshuu maraayo waa meel sel uu kasoo jeestay, laakiin macquul inay noqon karto hayaalo in lasii jibiyo maadaama USD JPY trendigeeda uu sel isku bedelay, inay tan ay sii jibiso. So marka qofkii scenario 3 camal ka tirir garayn karo 5 minute oo kale, hadda scenario 3 oo kale waxaa haysataa trendigaada oo 5 minute low kana 5 minute low ku ah, even 15 minute ka xataa, then kan wuxuu ku noqon karaa correction. Dad scenario 3 tirir gareeya waa dadka 1 hour-ka jihadiisa aanan ilaalin, laakiin trendigooda iyo shuruudahooda ka ilaaliya. So kaasaa liquidity ku noqon karo. kaas haddii liquidity u noqdo, kan wuxuu noo noqon karaa shift. Okay, scenario 3 haddii ay macquul tahay inaad trade garayno, so marka halka maxay noo noqonaysaa, halka waxay noo noqonaysaa entry zone, halka waxay noo noqonaysaa entry zone. Haddii suuqu halka ku laabto selkaas, qaab scenario 3 u qaadan karnaa. Wixii kasoo kordho waa idin la soo wadaaga, laakiin meeshii hadda marayso meel aad selka aad ka qaadan kartid ma joogto. Already zonekaaga waxaa looga jira 48 bips, so haasto inuu return ay kuusoo sameyso at least 20 bip, then 25 aad dib u baxdid. mar alla markii meelahan kugu soo laabato inaad selkaa qaadatid. Waa nidaam scenario 3 ah. dad trade gareeyaa jiro, anigoo dooqeyga ma ahan, laakiin adi haddaad trade gareysid still okay, aan sii qiyaasi karti in hayaloga meesha laga sii saari doono oo suuqana sel sii aadayo. waa sida hadda DXY bay kasii muuqato. So intaas bip hadda 60 bip ilaa hayalogan haddaa haysta xataa kaa badan, maadaama ka inducement uu yahay haddaba ilaa 65 haddaa kaa badan, laakiin meeshii hadda maraysa already waa meel ay soo daadatay. So haasto inay dib u laabataa, taasoo marka aad ka fahmi kartid patience aa u baahan tahay inuu traderka mar kale entry kugu laabto haddii aad rabtid inaad scenario 3 trade gareysa. Laakiin ani shakhsi ahaan tradekan hayalogan la jebinin oo new low 1 hour aanan helin, fursaddaas ma qaadanayo personally. Sababta targetka isbuuci aan leeyahay waxay tahay inaan 5 trade qaadan karo. So 5 trade haddaa helo oo 200 pips ka mid ah, haddii aan isbuucan aan ka qaban karo profit ahaan, haddii 5taas mid ka mid ah 2 aa khasaaro, SL aa qaato 3na aa TP helo, still I'm good. So nidaamka lagu shaqeysto waxaa ugu muhiimsan waxaa waaye inta badan aan ku celiyaa waxay tahay haddii aadan journal lahayn oo suuqa uu journal kuu samaysnayn, bisha kuu bilaabanaysa intaad khasaartay, inta lot ku ah, inta target pipsigaaga ah, inta suuq aad ka rabtid, systemkaaga iyo rulsigaaga aadan ilaalinaynin, dee wax aad garanti aan kuu hayo waxaa waaye inaad suuqan iskaga bixaysid. inaad wareertid aad waqti iskaga sii lumisidna ma ahnaad, haddaba iska sii bax. Shaqooyin kale iyo barnaamijyo badan iyo howlo badan oo adiga hadda kuu muhiimsan oo la rabo inaad waqti gelisida u baahan, forex iska dhaaf. Sababta forex systemka ugu weyn oo inuu qof maanta lacag ka sameeyo waxaa ka hortaagan waxay tahay inuusan garanayn qofka shaqadu qabanayo, uusan xaq u haynin, keliya MT5ka sell iyo buy la dhahay uu xaq u hayo. So haddii aadan shaqadaada ahayn, aadan trade-kaad khasaartay aadan SL qori karin, kii aad khasaartay aadan TP qori karin, aadan target goals maalinka aadan lahayn, average trade aadan lahayn, lot trade-kaaga kuu qorneen, risk management-kaaga uusan miiska kuu saarneen, aadan ahayn qof ganacsado sax ah, wuxuu khaldo wuxuu sax og aadan ahayn, iska bax forex. danna kuguma jirto. howlo kale iyo barnaamijyo kale oo ka fududaa jiro. Sababta aan saas kuu lahayn wax kale maahan, dad badanaa kusoo daalay oo suuqan siday u joogeen account bay u gubayeen, marka dambe iska daneystay. So marka dadkaas maxaa ugu duwanaan kartaa? Ma inaad ka aqli badan tahay u malaysaa? May, kama aqli badnid. Ma inaad ka skills fiican tahay, experience badan aad dheerta miya? May. waxaas dhan muhiim ah. waxa muhiim ah waxaa waaye traderka hadda qaatay siduu yahay.
maxaa liiga baahan yahay, maxaa goals ah, maxaa nidaam ah. Every week markaad soo kacdid dhowrkan shay su-aalooda raba inaad isweydiisid. So inta badan waa isticmaala aniga su-aalaha mar alla markaa isweydiiy. So waxaa ka mid ah goolkaaga isbuuca maxaa waaye. So what's your goal? So qof dad qaar xataa subax markaa soo kacid isniin aad soo kacdid weekly goalsigaaga xataa kuuma qorno. Imsaad tiriiraad qaadanaysaa, maxaa shuruudaha aya. So am I going discipline to my system? Xataa dad qaar inay isweydiiyaan ku adag systemka aniga aan ku shaqeynayo mas arab inaan ku tirir gareeyo discipline ma ku ahay, mas waxaa waaye keliya tiriiraan helay qaado, mas hebelaa sel dhahay waan selaan dhahaya, mas hebelaa tiriirkii soo diray waa inaan tirir gareeya, ma sidaasaad u shaqeysaa. Waa inaad isweydiisaa waxyaabo discipline ah ku tahay oo la rabo inay ku xaqiijiyaan goolalkaada tradingka. Su-aashaas isweydii subax walba markaa soo kacid, am I trade walba oo qaadanaysid, am I right to my system, systemkayga ma haya. Because hadduusan system meesha yaalin qamaartana soo gala, haddaa qamaartantidna suuqan kolley kama reynaysid, adaa shalay imaada adaa baxaayo, lacag walba oo aad soo heshid account aad kusoo furtidna accountkaas waa ku daynaa. So adi isweydii marka tee ku ron inaad system ku dhaqantid oo aad qof toosan noqotid, bas inaad mar walba aad suuqan lacag aad usoo raadisid maadaama accountkii hore aad gubtay. So isweydii I don't know su-aashaas adaa aqaan. So waxaa la raba inaad isbuuci hore aad ka baratay tradeka muxuu ahaa, what's the one thing to improve this week. Isbuuci hore maxaa kaa qaldanaa oo isbuucan la rabo inaad hagaajisid, waxaa kuu diiday isbuuci hore inaad profit noqotid. Bug iyo qalin qaado, muxuu jooga bug iyo qalin, nus dollaraad bug iyo qalin kusoo gadan kartaa. Beber qaado buuxi, maxaa isbuuci hore dib kuu dhigay accountkaaga hor u socod u keeni waayo, maxaa accountkaaga isbuuci hore ugu xirmay khasaaro. Sababta isbuuci hore khasaaro ugu xirmay dhowr qodob qor aad dhihi kartid, qodobkan iyo qodobkana sabab igu noqday inaan accountkayga hor u socod u yeelan waayo. So isbuuca marka improvement ku sameey iyo khaladkaa soo laaban improve. Okay, so marka sidoo kale waxaa isweydiisaa am I keeping the journal. Journalka are you sure inaad journalka sameysid, mise just waxaa waaye qof emotion ku tirir garee noqon doontaa. Isweydii isbuucan keep inaad journals every trade aa qortid. I know inta traded ugu badan oo dad account ay ku guban ay ku khasaaraan systemka ay ku shaqeeyaan maahan waa inay dadkii noqdaan qof iska warhaynin mahsan oo trade xog u hayn. Marka inta qof oo meeshan ku jirto 115 qof 20 qof 100 inta qof oo tradingka ku jirto social media aad ka aragtid oo rabto inay suuqan guul ka gaarto, mise ay rabaan inay wax kuu sheegaan tradingka in lacag laga sameeyo, believe me cid yaraa lacag ka sameyso. So marka adiga marka kuwee ku beeri doontaa, ma kuwaas sii tegi doonaa mise kuwa iska naftooda ka adkaan doona og inay meeshan ganacsi tahay. So intaas uga baxaya kulley, intaasaa idinkugu talagalay. Haddii wax su-aal ay jirto qaybta comment way furan tahay, please su-aal fiican oo macquul ah oo topic ku saabsan mise aan rab inaan kaa caawiyo iisoo qor. Sababtoo ah wixii beri ka dambeeyo ilaa haddana isniinta dambe so publicaas meeshuu iga egyahay. Marka su-aashaada meesha igu reeb then